muuqeenan waxaynu ku dul istaagaynaa sheekada ninkan lagu magacaabay Hulk dhabta ah, The Real Life Hulk. haddaadan aqoon Hulk, waxa uu ahaa karakter film Marvel ahaa oo soo baxay 2003. superhero-han cagaaran ee xoogga badan waxaa haatan magaciisa qaatay wiilkan reer Pakistan ee magaciisa saxda ah la yiraahdo Arbab Khaysar Hayat, balse ku magac dheer Khan Baba iyo The Hulk labadaba. ninkan isugu yeeray kan adduunka iyo dalkiisa Pakistan ba ugu xoogga badan. haddaynu taariikhdiisa oo aad in badan internetka ku aragteen dib ugu noqono, waa 29 jir ku dhashay magaalada la yiraahdo Mardan, gobolka Khyber Pakhtunkhwa ee dalka Pakistan. miisaankiisu waa 440 kilogram, halka dhererkiisu 6 feet ka dheer yahay. in badan ayaad aragteen ninkani isagoo dad kala tuuraya, gawaari kor u qaadaya, biro miisaankoodu culus yahay qaadaya, 36 xabo oo kun ah iyo 6 kiilo oo hilib ah halkii maalin ku qadeynaya, ama masaarico aan heerka xirfadleyda sare ahayn ciyaaraya. taas ayaana ka dhigtay mid caan ka ah baraha bulshada iyo jariiradaha ka hadla miisaanka aadanaha iyo sportiska. ha yeeshee waxaa waqti aan fogeyn soo shaacbaxday xog tilmaamaysa in ninkani faroor yahay oo ficilada uu sameeyaa aysan ahayn kuwo dhab ah ama ay jilliin uun yihiin, isla markaana uusan wajihi karin challenge ama xujo dagaal oo dhab ah. waa dhab inuu miisaan ahaan yahay mid aadanaha intiisa badan ka xoogan. ha yeeshee masaaricayste la yiraahdo Usman Bullet oo waqti dheer doonayay inuu la kulmo ninkan, ayna kulan masaarico oo rasmi ah isku arkaan, maadaama ay marar badan hanjabaadi uga timid isaga, ayaa su'aal geliyay dhab ahaanshaha Khan Baba kadib markii uu diiday dalabkiisa dagaal. Usman Bullet ayaa yiri, maraan shaqo u joogay dalka Pakistan ayaan tegay Mardan, guriga ninkan ilaaladiisa ayaan weydiiyay inuu joogo. kadib markii ay xaqiijiyeen inuu joogo ayaan ku iri u sheega inaan sugayo. ha yeeshee waa uu diiday inuu ila kulmo. intaas dabadeed waxaan ku iri tusa wax cadaynaya in ninkan ficiladiisu dhab yihiin. dabadeed suunkiisa masaaricada ayay ii keeneen oo dhabtii isaguna feeg ah. wuxuu ninkani sheegay in marar badan Khan Baba u hanjabay, balse nasiib darro uusan markii ay dhabta joogto wajihi karin. muuqaalka tilmaamaya inuu fraud ama mid aan ficiladiisu dhab ahayn yahay xogweynahani ayaa si xawli ah baraha bulshada ugu faafay, kuwa oo ilaa haatan su'aal geliya dhab ahaanshaha waxyaabaha uu magaca ku kasbaday. docda kale, Khan ama Hulk waxa uu doonayaa inuu miisaankiisa sii kobciyo si uu uga qayb galo tartamada miisaan qaadista ama weight liftiga adduunka, sidoo kalena uu u noqdo masaaricayste xirfadle ah.